runtii aniga caawa sharaf aad u weyn iyo farxad aad u weyn ayay ii tahay inaan magaalada Jigjiga aan joogo oo ah markii koobaad oo magaaladan soo booqdoon imaado fikrad iyo aragtidii aan ka qabay mid aad iyo aad uga duwan runtii waan ka qaatay muddada yartahay aan joogay waxaan ka qaatay ummaddu haddii ay iskaashato ummadda haddii ay istaageerto ummadda haddii systemkeedii iyo nidaamkeedii iyo hoggaankeeda ay raacdo sida degdega ah ee sahlan ee horumar lagu gaari karo ayaan runtii ka qaatay waana ku mahadsan yihiin waxaan ka qaatay inaanan horumarku waqti dheer u baahnayn u baahan yahay midnimo wadajir israac iyo hoggaan inuu u baahan yahay madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday deegaanka Soomaalida Itoobiya ay waayay aragnimo dhanka isbedelada qaabka loo sameeyo ka qaadanayaan Itoobiya iyo Soomaaliya ay yihiin laba dal oo xiriirkoodu uu yahay mid soo jireen isla markaana isku xidhan sida saaxiibkay Sheikh Ahmed uu yirina hadda anaguna waa idin soo jileecaynaayo dhankiinu baan soo fiirinaynaa waxaana xaqiiqo ah haddaan Soomaaliya nabad laga helin hadda Itoobiya nabad noqon ma haddaan Itoobiya nabad laga helin Soomaaliya nabad ma noqonayso marka waa laba dal oo daris ah oo nabadooda iyo xasiloonidooda iyo horumarkoodu isku xiran yahay Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa sheegay in horumarka ka jira deegaanka Soomaalida Itoobiya lagu gaaray dardar xoogan ayna wax badan ka kororsanayaan runtii munaasabada iyo xafladda yar ee naloo dhigay iyo heesihii qiirada iyo wadaniyada lahaa ee nala tusay waxay dib noo celiyeen 40 sano xilligii toddobaatmeeyadii oo kacaankii Maxamed Siyaad Barre uu jiray oo kale ayaan dib ugu laabanay waxaan runtii dareemay halkan inuu ka jiro kacaan iyo laba kaclayn inuu ka jiro ayaan aad iyo aad u dareemay waana midda horumarka degdega keentay waa kacaankaas iyo laba kaclayntaas ayaa horumarka degdega keentay marka aad iyo aad u mahadsantihiin aadan ugu faraxsanahay runtii nabadda iyo horumarka degdega ee dawladdeegaanka Soomaalida ka jira aadan ugu faraxsanahay annagana insha Allah taala waa idin soo haynaa waana idin soo haleelaynaa mar muddo aan fogeyn waana iskaashi iyo wada shaqeyn iyo midnimo buuxdo oo xagga nabadgelyada iyo horumarka intaba ayaana dhaxmari doona haddana runtii dhex yaalo naga